بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal 6 sano ka hor maanta oo kale 14 Oktoobar 2017 waxaa lagu xasuuqay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Soomaalidii ugu badnayd ee abid isku meel lagu dilo cadawga ummadda Soomaaliyeed ee khawaarijta dhinac martay diinta islaamka ayaa halkaas si aan kala sooc lahayn ku gubay ama meyd ahaan iyo dhaawac ahaan uga tagay ummad Soomaaliyeed oo ah muslimiin abriya ah oo tiradoodu kor u dhaafayso boqolaal. dadkaas la gumaaday galabtaas waxaa ka dhaxeeyay inta sumad ka dhaxaysa dad nool sida dhalaan iyo ciroole, waalid iyo awlaad, culimo iyo caamo, xoogsade iyo mid dan yar ah, mid buka, mid caafimaad qaba, qaran joog iyo qurbo joog. waxay lahaayeen qabiil kasta oo Soomaaliyeed iyo dabaqad kasta oo jirta. walaalayaal maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah kaliya ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil. ilaahay quraankiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri suuratu maa'ida: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. waxaan wada ognahay in kooxdaas diinta ilaahay dhinac martay oo ay caadaysatay gumaadka ummadda Soomaaliyeed in ay magaalo walba Kismaayo, Gaalkacyo, Baydhabo, Jowhar, Boosaaso, Beledweyne, Hargeysa, Afgooye, waddo walba iyo hotel kasta oo ku yaala Muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si keli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa. walaalayaal in badan oo inaga mid ah oo ka gubanaya gardarrada, xasuuqa, ku takrifalka iyo ka been sheegidda diinta ilaahay waxay isweydiiyaan maxaa intaa ka daran oo ka xanuun badan oo ku dhici kara ummadda Soomaaliyeed si ay u kacaan isaga dulqaadaan heeryada cadowga al-shabaab oo mas'uul ka ahaa dhammaan jariimooyinkaas uu ugu weynaa xasuuqii 14 Oktoobar. walaalayaal ka sifadayda madaxweyne Soomaaliyeed ee loo dhaariyay ilaalinta iyo sugidda amniga muwaadinka iyo dalka Soomaaliyeed, waxaan horeyna idinkugu sheegay maalintan na xanuunjinaysa xasuusta iyo laxawga nagu haysana darteedna aan mar kale hoosta idinkaga xariiqayaa in aynaan jirin wax intaa ka daran ama ka xanuun badan oo aan sugayno in aan ugu istaagno difaaca xurriyadda iyo sharafka Soomaaliyeed ee dhiigga badan aan horay ugu soo hurnay. dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maalintii la ii dhaariyay talada dalka ilaa maanta waxay dowladda Soomaaliyeed mudnaanta koowaad siisay sidii dalka looga xoreyn lahaa cadowga oo aniguna aan tuutaha u xirtay safka hore ula galay geesiyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo oo quraankiisa kariimka suuratul xaj nagu yiri: udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu
وإن الله على نصرهم لقدير. ولا ليان دولتين يعيدا كينوبا ويأجيبين أمرك إلهي ساعدان أن إذن الله هدلايو ويلل يا قبل الصوماليات أيا تاغن فرماها هوري دقالك أو ديار أوه إن أي نفتوذا أهوران دينتوذا dalkooda iyo dadkooda oo ay calanka ka qaadaan halkii ay soo gaarsiiyeen raggii iyo dumarkii ka horeeyay iyaga. walaalayaal daqiiqadan aan idinla hadlaayo caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa agoomoobaya, waalidiin Soomaaliyeed ayaa gablamaya, gabdho iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayaa iyagana asay qaadaya. sababtuna waxay tahay in la fuliyo amarka alle, loogana jawaabo dareenka muwaadinka Soomaaliyeed ee raba in la ilaaliyo cizigiisa iyo sharafkiisa iyo xurriyadda uu alla siiyey maalintii uu dhashay. cadowgiina xasuuqay Oktoobar 14 naguna xasuuqay magaalo kasta oo Soomaaliya ku taal iyo hotel kasta iyo isgoys kasta oo ku yaal Muqdisho wali way soo malabsanayaan si daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed ee qaaliga ah. haddii ay fursad kale helayaanna gumaadkaas iyo kuwo kale oo ka xanuun badan ayay weli nala maagan yihiin. nasiib wanaag walaalayaal, maanta halistaas intii hore way ka yar tahay, welise ma dhammaanin. wiilashaas iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ciribtirka cadowga ku dhiiraday waxay u baahan yihiin garab istaagiina. dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay garab istaagiina. inta aad haysataan wiilashaas iyo gabdhaha iyo madax ay ka go'an tahay ilaalinta sharafka iyo ciziga dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo weliba gargaarka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaad ku bishaaraysataan niyaddana ku dhaadataan in aan guulaysan doonno cadowga Ilaahay ee khawaarijtana aan jabin doonno. wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin. walaalayaal, guusha aan ku xisaabtamayno maaha mid meel cidlo ah ka imaanaysa. waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda, si aan loo baylihin dhiiggaas loogana midho dhaliyo sababtii ay u shahiideen. waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan, ku beegan, oo uu halganka wax ku darsado maanta socda. waa in aynu isugu jirno qof ka halgamaya furimaha hore iyo mid heel la daba taagan geesiyaasha. inkasta oo walaalaha iyo saaxiibada caalamkana garab taagan yihiin intii karaankooda ah kuna mahadsan yihiin, haddana cadowga waxa uu dul hoganayaa annaga Soomaalida ah. waajibka koowaad waxaan u saaran yahay dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxdooda. sidaa darteed dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, maanta waxaan mimbarkan fariimo guud iyo kuwo gaar ahba uga dirayaa qaybaha kala duwan ee bulshadeenna caanka ku ah isku hiilinta iyo isku hilbadirirka xilliyada ay adag tahay duruufuhu. fariintayda koowaad ee ugu horeysa waxaan u dirayaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaano macuulisleyda ee ku sugan
jiidaha hore ee dagaalka. naftooda horayaal, qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay kuna dhisnaan doonaa, xurriyadiisuna ku bulaali doontaa dhididkiina iyo dhiiranaantiina. waxaad xambaarsan tihiin ammaano ay halgamayaal hore u hureen naftooda. waxaad indho iyo mustaqbal u tihiin 20 milyan oo Soomaali ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda. jiilal aayaha noloshoodu ku xiran tahay waxa aad maanta u tacbaysaan. ciidankeenow, waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo. dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdow ha seexan, xil baad sidaaye ha seexan. geesiyaal, waxaan idin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiina ummadda Soomaaliyeed idinsoo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aad dugsataan. maalintii aynu go'aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay. ilaahay idankiina guusha kama dambaysta ah way noo muuqataa, waynu xaqiijin doonaa in sha allah. isla markaana waynu ilaashan doonaa markaan xaqiijinno kadib. naftood horayaalow, waxaan idin ballan qaadayaa in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay mar walba xasuusan doonaan kaalintiina shariifka ah. isla markaana qof walba oo jihaadkan qaab ama mid kale uga qayb galay loo xusi doono sida ugu munaasibsan uguna suurtagalsan, hadday ahaan lahayd dallacsiin, bilado ama siyaabaha kale ee la isku qadariyo ama la isku xuso. ummadda Soomaaliyeed ee walaalayaal, ciidamada geesiyaasha ah ee ku jira furimaha dagaalka aad ayay u dhibaysaa marka ay maqlaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo ku dhimanaya khilaafaad siyaasadeed iyo kuwo qabali ah. waxay ka jeclaan lahaayeen, kulligeen aan ka jeclaan lahayn, in wiilashaas Soomaaliyeed ay iska barbar dagaalamaan oo ay ku wada guulaystaan iyagoo meel uga soo wada jeeda cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed. saan horey baa u iri, cadow waa hal, waana shabaab. walaalayaal, waxaa maanta alla hortii idinkaga codsanayaa in aydan wiil iyo gabar dambe dhiiggiisa nooga daadan wax ka sokeeya jihaadka lagu cirab tiraayo khawaarijta oo ah cadowga dadka, dalka iyo diinta. fariintayda labaad waxa ay ku socotaa culimada Soomaaliyeed. marka hore waxaan leeyahay jazaakum allahu khayru ljazaa. ilaahay ha idinka abaal mariyo sida aad xaqa ummadda Soomaaliyeed ugu caddayseen, una tusteen in khawaarijtu ay ku xadgudbeen oo ay ka been sheegeen diinta Allah. waxaan culimada ka codsanayaa inay sii xoojiyaan dadaalka oo ay noqdaan kuwa jiidaha hore ee dagaalka ku dhiirigeliya ciidanka halganka kula jira khawaarijta, ama ay noqdaan kuwa ka shaqaynaya taakulaintooda. walaalayaal, fariintayda saddexaad waxay ku socotaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, kuwa hadda xilka haya iyo kuwa horay u soo hayay iyo kuwa hadda ku taamaya in ay mustaqbalka hogaamiyaan dalka, waxaan uga mahadnaqayaa
aragti dheerida iyo fahamka ay nala fahmeen in cadowga koowaad kan labaad iyo kan saddexaadba ee Soomaaliya uu yahay nimankaas xadgudbay ee 15 sano Soomaaliya u afduuban tahay ayagoo dhiigga shacabka qubaya si ay u farax geliyaan ama ku xumeynayaan qowmiyada kale oo caalamka ku nool oo dalalkooda iyo danahooda iyagu hagaagsaday. waxaa kale oo aan ku ammaanayaa in ay nala garteen in waajib ay tahay in juhdiga iyo awoodda ugu badan la geliyo dabargoynta fikirka xagjirka ah ee ay arxanlaawayaasha khawaarijtu ku abtirsato. waxaan si gaar ah uga codsanayaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Soomaaliyeed in wada ogol iyo isqaadasho iyo wada jir lagu xalliyo wixii aragti kala duwanaan ah isla markaana aan la siyaasadayn marna dagaalka lagula jiro khawaarijta. gunaanadkii dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maanta maalin guuli nooga dhowdahay nama soo marin ee aan israacino cadowga. dadaalkii aan ka bilownay Xawaadley iyo agagaarka Xamar wuxuu sii marayaa maanta Xaradheere, Camaaro, Maxaas ilaa Aadan Yabaal iyo Ruunirgood. qiyaasa dhulka intaa la eg baaxad inta kilomitir uu yahay. maalintaas la bilaabay halganka ilaa maanta shabaabku waa laga adkaanayay, waa la jibinayay, waa la sii eryayay, mar walba godaa laga sii bixinayay ilaa 300-400 oo kilomitir dhul isku jira laga banneeyo. waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay intii shabaab dileen jannaha siiyo, kuwa dhaawaca ahna allaha u boogadhayo. ilaahay wiilasheenna iyo gabdhaheenna hortaagan cadowgaas ilaahay iyo islaamkaba ka furtay guul ha siiyo. ilaahay ummadda Soomaaliyeed boggooda burcad ha isku mariyo oo ha walaaloobeen oo ha midoobeen. guul iyo gobonnimo dhammaystiran ilaahay idinkiis. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.